jamhuuriyadda somalilan ayaa mar kale taariikh samaysay iyadoo qaaday tallaabo diblomaasiyadeed oo miisaan culus leh taasoo si weyn u xoojinaysa dadaalada ay muddada dheer ugu jirtay helitaanka aqoonsi caalamiya oo ay hadda xaqiijisay bilowgiisii markii dowladda israa'iil ay noqotay dalkii ugu horreeyey ka tirsan qaramada midoobay ee aqoonsi buuxa siiya somalilan kulankii xalay ka dhacay magaalada daafos oo ah goob ay isugu yimaadaan hogaamiyaasha dunida ganacsatada waaweyn iyo go'aan gaadhayaasha saamaynta leh ayaa ahaa mid muujinaya bisaylka siyaasadeed iyo kartida diblomaasiyadeed ee somalilan kulankaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cerro kula kulmay madaxweynaha israa'il wiilka madaxweynaha maraykanka ee eric trump ganacsato caalamiya iyo siyaasiyiin caan ku ah saamaynta ay ku leeyihiin masraxa caalamiga ayaa ahaa fursad qaaliya oo somalilan ay ku soo bandhigtay aragtideeda siyaasadeed dhaqaale iyo amni ka qaybgalka kulamo heerkana waxa uu muujinayaa in somalilan aanay ahayn dal ka gadoonsan caalamka balse ay tahay xubin si firfircoon uga qayb qaadan karta arrimaha caalamka kulankani waxa uu caddayn u yahay in jamhuuriyadda somalilan ay gaadhay marxalad cusub oo ay dunidu si dhaba u tixgelinayso jiritaankeeda iyo doorkeeda